السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا شبكة وراركا SSC Radio. waxaanu caawa idin haynaa waraysi aanu la yeelanay Saciid Xirsi oo loo yaqaan Saciid Atam oo isagu ku nool gobolkan Minnesota. Saciid ayaan waxaanu ka waraysanay xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya, qaas ahaan magacaabidii dawladdan cusub oo ah dawladda rasmiga ah ee loo sameeyay wadanka Soomaaliya. marka ugu horeysa Saciid ku soo dhawow shabakada SSC Radio. عبد العاد ما سنتها سعيد سؤال ugu horeysan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa weeye waxaad moodaa Soomaaliya isbedel degdeg ah inuu ka socdo, hase ahaatee laakiin waxaad moodaa dad badan inay isweydiinayaan isbedelkan cusub ee wadanka Soomaaliya ka socda. marka haddaan si kooban ku weydiiyo sidee kula muuqataa guud ahaan dawladdan cusub oo hadda iyadii loo magacaabay ama la doortay gudoomiye baarlamaan, madaxweynihii wadanka iyo ra'iisul wasaarihii oo isagu hadda lagu dhawaaqay, sidee kula muuqataa ilaa iyo hadda sidee kula muuqataa? axmed, marka laga hadlayo dawlad government waxa weeye waa entity samaysa ama protect garaysa lawga of that country, responsibility for general administration, national defense, economy and taxation. intaas oo dhan samayn karta defensiga xuduudaha, maritime-ka badda, ilaalinta integrity of dhulka dawladdaasi leedahay baa dawlad la yidhaahdaa. waxyaabo baa moodaa positive inay jiraan, sida matalan awal dibadaha lagu soo samayn jiray sida Djibouti, Kenya, dawladihii ka horeeyay, laakiin tan waxaa moodaa in gudaha wadanka lagu sameeyay Muqdisho. inkasta oo aanan aad ugu faraxsanayn siyaabaha wuxuu dhacayeen, waayo waxa weeye Axmed, marka man sanna sunnatan xasanatan falahu 10 mithlaha ومن سن سنة سيئة فله مثلها. qofkii sunno fiican jideeya waa loo laban laabaa 10 baa la siiyaa. halkaas productivity-ga waxaanu ka baranay islaamka iyo ribixa. waxaan leeyahay wuxuu inay kordhaan. in haddii qofku xumo sameeyana xumaha un loo tixgeliyo. waa garanaysaa dawladda sida loogu doortay dawlad maamul corruptida oo laaluush, baarlamaan corruptida, lack of education, laaluush la qaadanayo oo openly dawladdii ku campaign garanaysa ama individualkii dawladda u ordayay ay ku campaign garanayaan lacagta qaata, ninkasta ka qaata, laakiin aniga ifooda. marka waxa weeye aad iyo aad waxa weeye wax looga xumaado dhaqanka xun ummadda hadeer uba noqday wax caadi ah. dad corruptida, laaluushku banaanka iska yaalo, iska urursanaya, ninkasta ka qaadanaya. waxaasaa baarlamaan inoo noqday. waxay doorteenna waxa weeye dee wax dawlad lamid ah oo aan ka hortegi karin waxa iyo dhaqanka socda corruptionka. dadka badankii aad bay ula yaabeen doorashada ama aan raahna gudoomiyaha degmada ama madaxweynaha. hase ahaatee markaad akhrisid oo dadka qaarkood waxay u bal yiraahdaa waxay ku soo baxeen nasiib ama waxay ka dhex faa'iideysteen tartan iyagu markaa dad kale oo la filayay oo ishaystay ay opportunity-ga ama fursadda ka dhexeleen. hase ahaatee laakiin marka aad fiirisid madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaankaba kuma cusbayn shaqada. gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu xilal usoo qabtay United Nationka, sidaasoo kale madaxweynahana waxaa la yiraahdaa waxa uu shaqo u qabtay asagana United Nationka. ma hubo ninkan cusub oo loo doortay ra'iisul wasaaraha ma u malaynaysaa in ay United Nationku ay ku leedahay lug kusoo bixitaankii codka xataa nimanka ku guuleystay madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka?
axmed waa analogy aada iyo aada u qiimo badan. waxaan u malaynayaa marka aada eegtid ninka la yidhaahdo artistaha la yidhaahdo amir camir wuxuu qoray madaxweyne n g o ah, ra-iisul wasaare n g o ah iyo dawlad n g o ah. waxa weeye meesha waxa ka soo baxay waa wax la balaangareeyey, waana wax ay wadatay international communitygu iyo UN to usually dadka international communityga iyo UN-ka iyo danaha danta kale dalkaas always waxay iska ilaaliyaan dadka nationaliska ee ka fikeraya danta dalka iyo dhulka iyo horumarka waddanka. marka waxay keenaan had iyo goor dad u shaqayn kara ama la shaqayn kara ama hawlahooda ay qaban karaan. hadda haddii aada eegtid khudbadii madaxweynaha ee ugu horreysay wuxuu yidhi will deliver the service, yacnaha waxa weye n g o buu ahaa, alaab baa loo keeni jiray, raashin baa loo keeni, macaawina tiibuu deliver garayn jiray. madaxweynahana waxa weeye waxyaabo kale oo badan baa u yaal, sharci dejintii baa u taal, sharciga ilaalintiisii baa u taal, dhulka difaaciisii baa u yaal, unitygii ummadda ayaa u yaal iyo waddanka, economigii dhaqaalihii inuu ka shaqeeyo, difaaci waddanka, nabadgelyadii, hawlo badan baa u taal. marka we will deliver the services, yacni waxa weeye processkii UN-ku waday ee serviceka ay keeni jireen un baanu sii wadaynaa. marka taasaan odhanayaa ninka la yidhaahdo afhayeenka baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaruhuna dee kolley prediction saas oo kale ah un, ama ra-iisul wasaaruhu waa appointee oo madaxweynaha appoint gareeyey. marka isna nin la shaqayn kara oo hawsha uu rabo qaban kara, ama caamo untu keentay hala deliver gareeyo, amaba maamulka iyo administrationka waxa madaxweynuhu uu magacaabo ha ku qanco ayuu keenay. marka taana saas un baan anigu u arkaa. khudbadaas dee waa caan oo waxaan samaynayo ma aha, laakiin hees baa jirtay kacaankii October oo la odhan jiray doqon iyo nin raga markay madax noqdaan yaa la kala gartaa. marka waxaynu sugi doonaa bal dee nimankii yimaade doqon iyo nin raga markay madax noqdaan yaa la kala gartaa. bal horta bal stepeska ay qaadaan baynu arki doonaa. siciid, waxaa jiray United Nationku in markii ay damceen madaxdii hadda laga wareejiyey xilka Shariif Cabdiweli Gaas iyo guddoomiyihii baarlamaanka inay soo saartay United Nationku warbixin aada u dheer, warbixintaas oo ku eedeynayeen lacago lasoo taxay oo ay lunsadeen dadka madaxda ahaa. dadka Soomaaliyeed badankood waxay filayeen in ay yimaadaan xukunka tusaale ahaan dad aan ka fog waxyaalaha la yidhaahdo musuqmaasuqa, dad aqoon fiican u leh dhaqaalaha. waxaa la sheegaa tartankii ugu dambeeyey ee ra-iisul wasaaraha inuu ku jiray nin aada aqoon ugu leh dhaqaalaha, dawladdii farmaajo la shaqeeyey, dawladda naftigeedana hadda laygu yidhi dakhli dejinta ayuu qaabilsan yahay. sidee u aragtaa marka xulashadii ay ninka madaxweynaha ahaa uu ka tegay markaa ninkii kale ninka la yidhaahdo Cali Ciise Cabdi oo isagu markaa IMF ilaa iyo 22 sano u shaqeynay? see kula muuqata arrintaas? waa arrin la isweydiin karo Axmed Weli. waxyaabaha markaba aada dareemi kartid waxaa kamid a waddankeenu wuxuu ahaa northern part iyo southern part. waxaa isu yimi labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur baa isu yimi oo heshiiyey. kabacdina nationka Soomaaliya saas buu ku dhismay oo ku jiray. marka power sharingkii waxaan u malaynayaa madaxweynuhu inuusan fahmin oo last two decades markasta laba nin oo reer koonfureeda ama 3 nin oo reer koonfureeda ayaa marba madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ninka la yidhaahdo afhayeenka
noqonayay waa jirtaa waxa la yidhaaha 4.5 oo dadku ayaan ku qanacsanayn laakiin haddana iyadoo ay taasi jirto lagama tegi karo power sharingkii oo waqooyi haddii koonfur madaxweynaha qaadato waqooyi dadka unionismka unityga jecel ee midnimada waddanka had iyo goor u taagan haddii matalan qola tidhaahdo anagu waddanka waa ka go-ayna ama group yar yidhaahdaan waxaanoo reer waqooyi hadday noqoto gudabiirsay hadday noqoto isaaq hadday noqoto dhulbahanti hadday noqoto warsangeli hadday noqoto reeraha kale waqooyi dega number badan baa waxay rabaan unityga soomaaliya marka qof waqooyi u taagan oo unityga soomaaliya raba oo reer waqooyi oo power sharingkiisaa kusoo geli kara hadda matalan tusaale haddaan usoo qaadano waxaa ra-iisul wasaare u cararayay inta aynu ognahay cali ciise cabdi axmed samater baa u cararayay jaamac xasan khaliif baa u cararayay intuba waa niman reer waqooyiya haddii 4.5ki xitaa la qiimeeyo qaarkood baa soo geli kara oo power sharingkii saasuu ku iman karaa unityga iyo midnimada soomaaliya haddii la rabo marka madaxweynuhu wuxuusan fahmin amaba uusan haddeer ku jecsanayn sidii uu wajihi lahaa unityga iyo midnimadii soomaaliya oo arrin aad u weyn ah waayo waddan hadduu waayo midnimo xuduudo la yaqaan hadda country waa sovereign nation way international recognized territory buu leeyahay people under the authority of that government waa inay noqdaan oo dadku dawladdaas ay wada hoos joogaan marka in la qiimeeyo power sharingkii aad iyo aad ayay u muhiim ahayd qof aqoon leh power sharingkana geli kara hadday doonto ay ku apply garayn karaan 4.5kana yani waxaan qabaa in madaxweynuhu arrintaa aada ugu khaldamay uuna ka booday nin kolleegiisa ama saaxiib yihiin ama isku xisbi yihiin wixii uu rabana fulin karaa ama NGO hala deliver gareeyo ama wax kale hala qabto waxaaba laga yaabaaba hadda mustaqbalka inaynu aragno inagoo jaanis siinayno oo aan ka hortegayn NGO-yo ciidamo leh laleeyahay ciidankani waa ciidankii qaranka laakiin NGO hebel baa iska leh arrintaas aad baan uga cabsi qabaa marka waxa weeye waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuusan fahmin power sharingkii soomaaliya iyo sidii unityga soomaaliya ku iman lahaa siciid dhibaatada jirta waxa weeye haddaad fiirisid madaxweynahan waxaad moodaa in uu raacay sida danta ay markaa ugu jirtay koonfur waxaana laga yaabaa in uu ka fikiray inuusan khilaaf badan uusan isku keenin arrintan reer waqooyiga waxaad og tahay inay ka jiraan khilaaf badan qaas ahaan Qaatumo iyo Somaliland miyaan kula ahayn haddii uu ka dhigi lahaa qof ka soo jeeda deegaanka Qaatumo inuu markaa kaga caraysiin lahaa qofka Somaliland iyo waliba Puntland oo markaa uu eegtay asaga wax oon dhibaato ay uga imanayn sidee kula tahay arrintaas Ahmed wali marka la eego ethnicity-ga saddex nooc ayaa loo kala qaybiyaa primordial iyo instrumental iyo social constructed baa loo qaybiyaa primordialku waa group yar oo meel isku urursada oo qabiil iyo ethnicity gaara isku ah oo yidhaahda annaga unbaa wax kasta le annaga unbaa dulman annaga unbaa kana annaga unbaa kana instrumentalkuna waa groupka iyagu hantida dadka booba oo dhaqaale bay raadinayaan social constructedku waa kuwa in shacabkii wada noolaado la wada dhiso power sharingkii iyo unitygii waddanka iyo wax noocaas marka hebel oo ah separatistan ka cadhaysiinaya haddii aan qof unionism doorto waxaanu ma garan karo waxa lagu qiimeyn karo ama waxa ay noqon karto adiga oo ah heerkii ugu sarreeyay madaxweynihii waddanka qofkii separatistaha ee cararayay ee lahaa Ethiopian isaga dhownahay Soomaaliya ama Ethiopian walaalnahay Soomaaliya iyaga isaga dhowna baan ka cadhaysiinaya haddii aan qofkii unityga Soomaalida iyo unityga iyo midnimada rabay aan doorto well the isaga baa define garaynaya laakiin anigu ma qabo inay tahay ra'yi aad oo caafimaad qaba
waxaa jira dad ka soo jeeda kalaanka Somaliland nimanka xukuma oo unionism ah waxaa kamid ah buubaaba kamid ah ragga waaweyn la yaqaan shacab badan baa unionism ah laakiin haddii uu isagu de ay macno u samaysay okay hebel baan unionism ka ogolayn oo unityga Soomaaliya ogolayn marka qof waqooyi ka soo jeedo oo unionka ogol baan dooranaya waxay ka cadaysiinaysaa qofkiisa British-taha well the taas waxaan u maleynayaa inay madaxweynaha wax dhaqaya wadanka iyo shacabka mutoonahay haddaan aan ka weydiiyo dhinaca danaha deegaanada dabcan aad adigu ka soo jeedid waxaad ogtahay in maxaan ku radaa nin deegaanka ka soo jeeday uu raadiyay inuu ka noqdo gudoomiye baarlamaan Cali Qalif Galeyd uu waayay waxaad ogtahay inuu haddana ra'iisul wasaarenimo uu raadsaday nin deegaanka ka soo jeeda uu waayay waxaa jirta dadka reer waqooyiga inay isku dhaqan yihiin ama ay isfahmaan waxaa jirta regionkana dadka ugu dadaalka badanba ama hadday dagaal noqoto ama hadday nabad noqoto ama hadday isku dayaanba inay cilaaqaad la yeesheen waa dadka Somaliland ma laga yaabaa arrintani inay wax ka bedesho dadka regionka ku nool oo ay markaas ay dantooda ku qasabto inay wax la qaybsadaan dadka ay isku dhaqanka yihiin oo markaa koonfurba ay ka tashtaan ma laga yaabaa inay dhacdo arrintaas wallahi Axmedow dadka waqooyi dega dhaqan ahaan sidaynu naqaan weligood way wada deganaayeen dad siyaabo badan u wada xidhiidha weeye culture xoog weyn oo adag baa ka dhaxeeya matalan haddaynu eegno culturada waxaa kamid a marka matalan dagaal dhacaan dadka la qabto lama laayo dumarka lama kufsado caruurta lama dilo maatada iyo xoolaha iyo waxyaabaha reerku haystaan lama dhaco marka kullay dadku way yihiin maalintii way islaynayaan habeenkiina reer waqooyigu badanaa iyaga israaca maalintiina iyaga islaaya laakiin iyagoo saa isu ah dadkan Khaatumo state marna waxaan ka suurta gelayn inay Soomaaliya ka go'aan wixii kale way ka heshiin karaan way ka wada hadli karaan laakiin arrinta aan suurta gelayn oo marna laga dhaadhicin karayn waxa weeye Soomaaliya inay laba wadan oo kala gaar noqoto oo la kala laakiin Saciid kama joojin hadalka waxaad ogtahay inkastoo de Soomaalidu qof walba uu jecel yahay dadka Puntland hadda badi ku nool ama maamulka Qaatumana ay aad hadda isu khilaafkaas oo aad u sii kordhaya waa iyagu waa dad dadnimada dadka aad wadaagtaan maxaan ku radaa dhalashada ra'iisul wasaarahan ama hadda la doortay waxaad ogtahay in qabaa'ilka daaroodka ay wada yiraahdeen nin walba anigu waxaygaan rabaa oo uusan jirin nin xeeriyay qaas ahaan ra'iisul wasaaraha hadda qabiilka uu ka soo jeedo waxaan oran karnaa markii dagaaladii waqooyi ay dhaceen Maxamed Siyaad Barrano uu wadanka ka ahaa madaxweynaha deegaanada ugu faraha badan oo dadka loo haysto deegaanka inay tahay xilliga wixii dhacay haddii uusan madaxweynihii aadan ka helin garowsi aadan ka helin ra'iisul wasaare garowsi oo danta lagu eegayo ama lagu protect garaynayo miyeen kuula muuqan marka idinkeena danta dadkiina aad ka tashataan oo ma garanaysaa aad kala heshiisaan dadka waqooyi ku nool ama Somaliland-ba Axmed wali marka la qiimeeyo wixii Soomaaliya ka dhacay wixii dawladda Siyaad Barre samaysay 1% kama ah dawladda Soomaaliya dawlad qaran bay ahayd national entity jiro oo la ictiraafsan yahay bay ahayd marka wixii qabaa'ilku ay sameeyeen ama warlordski qabaa'ilka aynu dhaqaanay wixii ay sameeyeen 1% kama ah wixii Siyaad Barre sameeyay Siyaad Barre waxyaabo badan oo positive uu sameeyay haddana la og yahay la ogaaday wixii uu sameeyay iyo wixii uu ahaa markii la arkay waxa weeye waxaan ajaa'ibka ah aan meel loo saaro lahayn wadankii baabiyo dadkii baabiyay marka okay aan u soo noqdo qodobka ah maadaama okay arrintan waa positive waa runta xamar ayaa dadka Khaatumo ay aaminsan yihiin inay tahay caasimadii wadanka dawladda federaalka inay xamar degan tahay bay aaminsan yihiin waxay leeyihiin dawladda federaalka baanu saboodaynaa ciidanka iyo maleeshiyada Silaanya haystaana
maalin kasta dee weerar bay ku hayaan oo dagaal joogta bay ku hayaan dawlad federaal oo sabooda oo ka hadashana dee weli ma hayno marka waxaa moodaa shacabka khaatumo iyagu inay dawladda isaga jibaysan yihiin dawladda rabaan federaalka rabaan unityga Soomaaliya iyo integrityga Soomaaliya rabaan laakiin amoodid kuwii ama neighborka la ahaa ama dawladda federaalku inayan arrintii danaynayn oo dana khaasa NGO-yo lacag see loo dhacaa see loo xadaa see loo urursadaa see akoonada loo buuxsadaa laakiin wadankii interestkiisii iyo overall national interestkii aan la qiimeynayn marka haddii ay noqoto dee taas ma noqon karto wax disappointment ku keenayo oo khaatumo intay go-aan gaadho ay ku odhan karto okay cidida nagama laha marka waa inaanu raacnaa ninkii lahaa Soomaaliya waa ka go-aynaa oo rabay dalka inuu kala gooyo marka waa inay hasalaan intay hasali karaan waayo waxani waa wax mabda ah jiritaanka Soomaaliya unityga Soomaaliya waa garanaysaa dhulkan waa dhulkii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ka kacay 21 years la dagaalamayay Ingiriiska oo ah calankii la oran jiray Saciid waxa weeye xilligii hadda dagaaladu ay ka socdeen deegaanka Soomaaliya waxay lahayd madaxweyne waxa ahaa Sheekh Shariif inkastoo caawimaad xoog leh u sameeyay ama uu magaranaysa aad u soo dhaweeyay maamulka Khaatumo haddana marnaba si toos ah oo lama hadlin maamulka Somaliland tusaale ahaan inuu dagaalka joojiyo waxaad xasuusataa waad ogeyd markii shirkii Ingiriiska lagu qabanayay oo dawladda federaalka iyo ay ku wada hadlayeen Somaliland lagama casuumin waxa oo deegaanka ka soo jeeda shirkii sidaas oo kale Abu Dhabi oo marka dawladdu waxaad moodaa inay iskeed uga madax banaaneed inay dadka la tashato inkastoo ay ka talinayeen marnaba wixii midnimada guud ee dadka ah anigu marka ku soo koobaya yaa xil ka saaran yahay dhibaatada tusaale ahaan hadda ka taagan laascaanood inay dadka kala saarto miyayna ahayn shaqo dawladda u taala dadka regionkan ma ilaa intee la eg bay qaban karaa shaqo dawladda federaalka u taalo oo ah in la ilaaliyo dhulka ama midnimada wadanka ama xuduudeeda Axmed wali waa sidaa u sheegay sida dawladda federaalka waxyaabaha shaqadeedu tahay baa waxaa kamid ah inay integrityga dhulka ilaaliso inay borderska ilaaliso badbaadiso inay shacabka kala badbaadiso inay maritimeka iyo biyaha badda dadku leeyihiin ay ilaaliso marka kama hadlayaan dhibaatadu kaliya kama dhicin Khaatumo state waxay ka socotaa Jubbooyinka waxay ka socotaa Beledweyne waarka ciidamada Etoobiyaanka iyo kuwa Kenya wadanka iska soo gelaya oo shacabka xasuuqaya dawladii kama hadlayso dawladii aynu lahayn waa dawlad dantii dadka iyo dantii shacabka kama hadlayso okay waxay leedahay waxaan ka cadhaysinayaa NGO-yada iyo international community-ga oo haddii aan ka hadlo waxan waayo ciidamada waxaa wata international community-ga wata dalka fasax kama qaataan dawladda markay soo gelayaan marka waxani ma aha anu ma oran karo waa dawlad meeshii waxaa haddeer Amazon international community-ga UN-ka groupkaasaa xukuma indirect bay u xukumaan waxaana waxa loo sii maro oo hawlaha la yiraahdo hawlaha fuli ma aha dawlad rasmiya nin baa beri gabiyo wuxuu Yaxya kii hagoog lagu arkaa loo hanjabayaa mar haddaanu ii hiilinayn ina huruufayo ya maxaa faraha habar waa itari waa hodayaan waxa weeye dawladii waa wax ku hodaya way ku hodaysaa dadkii bay hodaysaa adu waxa leeyahay dawlad baa jirta dawladii waatan dawladiina shacabkii kama hadlayso shacabkii danihiisa kama hadlayso kala goyntii dhulka kama hadlayso sabritiisi kama hadlayso kii danta shacab wadanka iyo unityga iyo difaaca unityga u taagnaana support ma siinayso so waa wax mucjiza weeye waa waxyaabaha u baahan in aad looga fakero oo sidii loo badbaadi lahaa
waddankana loo badbaadin lahaa anu waxaan qabaa revolution baa loo baahan yahay revolution saxa oo Soomaaliya ka dhaca overall Soomaaliya oo dhan oo lagu badbaadiyo waddanka iyo ummadda in loo baahan yahay baan malaynay waxaan jeclahay sidaas oo kale bal inaan wax kaa weydiiyo anagoo bal ujeedada iyada ay tahay habka federaaliga inaan eegno sidaas oo kale Puntland ayaamahan waxaa kasoo yeeraya hadallo fara badan oo ku saabsan xagga federaalka iyo maxaan ku idhahdaa arrintii ka bilaabatay ama doorashooyinkii madaxweynenimada ama ra-iisul wasaarenimada Puntland naftigeeda ma laga yaabaa inay tiraahdo anagu waa ka tashanaynaa dowladda federaalka inkastoo hadda warkii ugu dambeeyay ay saxaafaduhu qorayaan inay taageertay ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruhu maadaama uu kasoo jeedo dadka asagu guud ahaanba daaroodka ah maxaad adigu markaa tala-aanaad oran lahayd inuu u sinaado dhammaan dadka Soomaalida iyo qaas ahaan dadka Soomaalida iyo maamuladaba Axmed wali aad ayaad u mahadsan tahay horta waxaan la yidhaahdo Soomaaliya 10 madaxweyne kama jiri karaan logic ma hal madaxweyne uun baa jiraya laakiin madaxweyne waddanka iyo shacabka iyo dadka fair waa inuu yahay madaxweyne aan hal qabiil oo uu kasoo jeedo madaxweyne u ahayn waa inuu yahay madaxweyne dhulka Soomaaliyeed wada tegi kara inta xorta ah ee aan separatistu haysan waa inuu yahay madaxweyne encourage gareeya unionismka iyo unityga iyo dadka ku shaqeynaya waa inuu yahay ma arko arrintan ah waxaa jiray Garowe Accords baa jiray oo dhowr jeer 3 ilaa 3 jeer oo waxa weeye international community ay federal sharciyada federaalka lagu dhaqi lahaa iyo federalismka la saxeexay marka waxa weeye at the end of the waxa weeye nimankan stateda haysta Somaliland iyo Puntland iyo Khatme state by the end governors bay noqonayaan ma jirayso dee halkan anaa madaxweyne ka halkan hebel baa madaxweyne ka as well as kuwa galmudug ka Jubaland hadda laga dhisayo state badan baa soo socda oo federal systemka gelaya marka dee nimankii iyaga laftoodii niman wax goosan karo awood leh ama u advocate gareyn karo oo odhan kara waxbaan goosanayna anymore ma ahaanayaan wax kolley sharciyaa jira iyo wax international community ugu talagaleen haddii ay caawimada laga gooyo wax faction gareyn kara oo revenue leh tax badan usoo xiroodo ma aha marka waxa weeye caawimada international community-ga ayay iyaga laftooda ku faction gareeyaan waana ogeydo de international community waa banish gareynaa bayaan wixii ka hor yimaada road mapkan aanu wadano marka kolley dee sharcigaas ay soo hoosgelayaano maanta wax badan oo u yaala ma jiraan wixii loo keeno inay si saxa u qaybsadaan si federalism u qaybsadaan power sharing qofba qof tixgeliyo ummadda oo dhan la tixgeliyo ummadda danteeda statedada dantooda la tixgeliyo saas un baa loo baahan yahay laakiin maanta waa goosanaya kuwii goosanayay baa la leeyahay lasoo xereeyo 20 sano raadinayo cidna meelna ay u suurtoobi weyday waayo shacabkii baan ogolayn shacabka degan waqooyi baan 70% ogolayn 80% baan odhan karaa ogolayn goosasho hargeysaan ogolayn burcaan ogolayn laascaanoodba cergaabaan ogolayn booramaan ogolayn marka group yar oo le waxbaan goosanaynaa dee wixii uma suurtoobayaan marka sidaas oo kale Puntland haddii de maanta uu faroleysiyaado waa goosanayaa iyo wax iskala laabkaco de waxa weeye at the end meel xun bay ugu dhamaanaysaa ugu dambeyntii anagoo bal mar dambana waraysi damba ku eegi doona xaaladda Soomaaliya iyo siyaasadan cusub haddii aad la hadli lahayd madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maxaad fariin aad u diri lahayd madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dee fariin loo diri karo nimankii waa niman cusub waxa loo diri karo waxa weeye ilaahay ka cabsada oo hawsha laydiin dirsaday kolley nidaam aan sax ahayn baa ku timaadeen oo corruption iyo laaluush baa ku timaadeen iyo qabiil wax doonayo oo u ordayo dagaalamaya
wala haddaan aniga layga dhigin haddaan aniga layga dhigin ilaahay ka cabsada xukunka laydin dhiibay ilaahay uga cabsada ama NGO yo ahaada ama UN ha idin soo magacawdo u shaqeeya ummadda baaba'day u shaqeeya lacagta la urursanayo waxa weeye qofku lacagta waa ka dhimanaya lacagtu waxba ma tarto sumcadda iyo sharafta ayaa wax tarta waa garanaysa hadda Shariif Sakiin waxa weeye waa rekorkiisu waa rekord gubtay inkastoo lagu yiri mid kale oo Sakiin la yiraahdo hadda meesha ka kacaysta oo madaxtooyada iyo meelahaas mala Sakiin kale marka Sakiin uma baahnin waxaa loo baahan yahay dad ummadda u shaqeeya aan jeebkooda u shaqeyn aan hantida la soo bariyay bal hadda Axmed oo fiiri ninku hadduu haysto wax uu isagu soo saaray oo wax u soo baxayaan oo production uu leeyahay oo taxation uu ururiyo oo uu xoogaa xado alaabtii iyo wixii soo baxayay dee still wixii waa soo baxayaan ka waran ninka $10 soo intuu soo bariyo $10 xaday dee waa inuu baryo tagaa haddana oo yidhaahdaa war 10kii hore yacnaa meel aan kaga warrabo ma haye 10 kale oo aan xado halaysiiyo he knows inuu xadayo tan laakiin shacab buu ku magacaabaya wuxuu leeyahay Soomaalidii oo dhibaatadana haysata cid la xisaabtamaysana male laakiin waa inay ogaadaan ilaahay baa la xisaabtamaya haddii maanta ayan shacabkii Soomaaliya awood ay kula xisaabtamaan lahayn waxa weeye hadda inda qabri bay gelayaan ilaahay baana la xisaabtamaya marka mas'uuliyadda inay ilaahay uga xishoodaan hantida baryada ah ee dadka la soo siiyay inay xadin taasuun baan kula talin lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Saciid Atam oo ka wareysanay bal xaaladii ugu dambeysay ee waddanka Soomaaliya halkaan naga dhageysanaysaan waa SNC Radio waxaana barnaamijkan idin daadinaya maanta anigoo Axmed Lahri inta aan ku kulmi doono barnaamij wareysi oo kan lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo